waa 13 Oktoobar sanadku waa 1977 maalin khamiis ah goobtu waa magaalada Palma de Mallorca ee wadanka Spain dadku waxay ku waabariisteen nabad iyo jawi degan laakiin dhowr saacadood kadib isla maalintaas warbaahinta oo dhan waxaa qabsaday war dhiila leh oo bedelay jawigii deganaa ee ay dadku ku naaloonayeen waxaa isqabsaday dareen kulmiyay naxdin welwel iyo cabsi gaarsiisan heer argagax ah haddaba sidee wax u dhaceen waatan sheekada ku saabsan afduubka diyaaradii shirkadda Lufthansa oo ahaa howlgal ka bilowday gudaha Spain kuna dhamaaday Muqdisho Soomaaliya halkan waa Itaal Media aniguna waa Aways Xaaji Nuur Aways R afar ruux oo hubaysan ayaa si qarsoodi ah uga gudbay goobaha baaritaanada iyo hubinta lagu sameeyo ee garoonka diyaaradaha wax kasta oo ay ku qaadatayba iyaga oo hubkoodii uu u qarsan yahay ayay u gudbeen gudaha diyaaradda oo ay ka mid noqdeen rakaabkii saarnaa diyaaradda Landshut oo ay lahayd shirkadda Lufthansa ee dalka Jarmalka diyaaradda oo ay saarnaayeen 86 ruux oo rakaab ah ayaa waxa ay ku sii jeeday magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka waxay sameynaysay duulimaadkeedii 181aad ayada oo hawada ku jirta qiyaastii 30 daqiiqo waxaa gudaha diyaaradda ka istaagay isla markaana hubkoodii la soo baxay afartii qof ee sida qarsoodiga ah hubka ula soo raacay diyaaradda waxay ka koobnaayeen 2 rag ah iyo 2 haween ah koox ahaana waxa ay ka kala tirsanaayeen ururka xoreynta shacabka Falastiin ee loo soo gaabiyo PLO iyo urur lagu magacaabo kooxda ciidanka guduudan Red Army Faction oo loo soo gaabiyo RAF kuwaasi oo ka dhisnaa dalka Jarmalka gaar ahaana qaybtii Jarmalka galbeed ahayd saddex ka mid ah ayaa dadkii rakaabka ahaa hubku qabtay una sheegay in diyaaraddu ay afduuban tahay cid isdhaqaajin kartana aysan jirin ciddii isdhaqaajisa ayada ayaa isdishay midkii afraad waxa uu si toos ah u abaaray halka diyaaradda laga kaxeeyo waxa uu bistoolad madaxa ka saaray Jürgen Schumann duuliyihii koowaad ee diyaaradda wuxuuna u sheegay in diyaaraddu ay afduuban tahay waa in amarka aan ku siino aad toos u qaadato isku dhaxyaac ayaa markiiba diyaaradda gudaheedii ka bilowday qaylo sawaxan iyo dadkii oo aan fariirsan laakiin afduubayaashii ayaa si qasab ah dadkii ku aamusiyay dhacdadan afduubka diyaaradda Landshut waxa ay la xiriirtay afduubka diyaaraddii Air France ee laga dejiyay Entebbe dalka Uganda taariikhdu markii ay ku beegnayd 27kii Juun sanadkii 1976 Anyone who tries to resist me will be shot. xilligaas oo howlgalkii ay kumaandosta Israa'iil fuliyeen ay ku dileen xubnihii afduubay diyaaradda oo uu ku jiray nin amiir sare ka ahaa ururka xoreynta Falastiin si ninkaasi howlgalka afduubkii hore lagu dilay loogu aargudo isla markaana gorgortan looga galo maxaabiis Falastiiniyiin ahaa oo ay Israa'iil haysatay iyo kuwa Jarmal ahaa oo ka tirsanaa ururka RAF oo ay haysatay dawladda Jarmalka galbeed ayaa arrimahaasi dartoodii loo afduubay diyaaraddan duuliyihii diyaaradda ayay ku amreen in duulimaadkii ku sii jeeday Frankfurt Germany lagu leexiyo jasiiradda Qubrus laakiin amarkaasi mid waqtigaasi la fulin karo ma ahayn sababtoo ah salbatooyada diyaaradda kuma jirin shidaal ku filan in lagu gaaro jasiiradda Qubrus taas beddelkeed waxa uu duuliyuhu soo jeediyay in Talyaaniga ay ka dejiyaan si ay halkaasi shidaal uga qaataan madaxii afduubayaasha ayaa ogolaaday soo jeedintaas kadibna diyaaraddii ayaa laga dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Rome markii shidaalka lagu shubay diyaaradda ayaa saraakiishii dawladda Talyaanigu ay weydiiyeen afduubayaasha waxa ay doonayaan in loo sameeyo kadib hogaamiyihii afduubayaasha ayaa soo bandhigay dhowr qodob oo shardi u ah in ay sii daayaan diyaaradda iyo dadka saaranba in la sii daayo maxaabiis Falastiiniyiin ahaa oo u xirnaa Israa'iil iyo kuwa kale oo ka tirsanaa kooxda ciidamada guduudan oo iyagana u xirnaa dawladda Jarmalka galbeed intaasi waxaa dheer in la bixiyo lacag madax furasho ah oo dhan $15 milyan intaasi kadib
madaxdii Talyaanigu waxa ay la xiriireen oo xogtii ay la wadaageen dowladda Jarmalka galbeed. laakiin dowladda Jarmalka galbeed waxa ay soo jeedisay in aan waxba loo aabayeelin ee diyaaradda taayirada laga banjariyo, taasoo looga gol leeyahay in la baajiyo duulimaad kale oo ay diyaaraddu samayso. saraakiisha ammaanka ee Talyaanigu way u cuntami weysay fikraddaasi maquuninta ku dhisan, waxayna soo bandhigeen heerka khatarta ka dhalan karta haddii tallaabadaasi lagu dhaqaaqo, weliba in ay u dhiman karaan rakaab badan oo diyaaradda saaran ama ay xitaa diyaaraddu u guban karto. taas beddelkeed waxa ay garowsadeen in ay qasab tahay in diyaaradda loo ogolaado in ay garoonka si nabad ah uga duusho oo aan wax taag ah la gelin, si loo ilaaliyo badqabka rakaabka iyo diyaaraddaba. diyaaraddii ayaa ka kacday garoonka diyaaradaha magaalada Rome xilli casir liiq ah, iyada oo ku sii jeeda magaalada Larnaca ee jasiiradda Qubrus. waxa ay halkaasi ka degtay 8 fiidnimo, muddo markii ay garoonka dhex fadhisay diyaaradda. kadib waxa afduubayaasha qadka isgaarsiinta kula hadlay rag sheegay in ay ka tirsan yihiin jabhadda xoreynta shacabka Falastiin, laakiin wada hadalkii dhex marayay labada dhinac waa uu guuldaraystay. Are you Captain Mahmoud? Yes, I am Captain Mahmoud. Can you speak with me in Arabic, please? I don't want to speak with you, okay? Whoever you are, and back off! mar kale ayay afduubayaashii dalbadeen in diyaaradda shidaalka loo buuxiyo. sidii ayaa loo yeelay. kadibna waxa ay ka duuleen jasiiradda Qubrus. markan waxa ay ku wajahan yihiin magaalada Beirut ee dalka Lubnaan. laakiin nasiib darradooda, dowladda Lubnaan ayaa amar degdeg ah ku soo saartay in diyaaraddaasi afduuban aan la soo gelin karin hawada Lubnaan, isla markaana laga soo dejin karin garoomadooda. duuliyihii diyaaradda ayaa helay fariinta diidmada ah ee ka timid dowladda Lubnaan, kadibna waxa uu ku wargeliyay afduubayaasha. laakiin afduubayaashu waxa ay amreen in loo leexiyo magaalada Dimashq ee dalka Suuriya. si la mid ah dowladda Lubnaan ayay madaxdii Suuriya iyaguna diideen in diyaaraddaasi dalkoodii laga soo dejiyo. markan afduubayaashu xoogaa jahwareer ah ayay dareemayaan. waxa u muuqata in qorshihii afduubka uu gabagabada ka halaabayo, laakiin si kastaba waxa ay istuseen in ay qasab tahay in ay qorshahoodii ku fuliyaan xoog iyo xeelad wada socda, in aan la isdhiibin oo yoolka laga libkeeno. waxa ay duuliyaha ku amreen in uu tijaabiyo haddii Baghdad laga dejin karo, laakiin dowladda Ciraaq ayaa ka biyo diiday. Kuwait ayay isku dayeen, waa laga soo xiray. waxay afka aadiyeen boqortooyada Bahrain, maya ayaa uga soo yeertay. waa xaalad cakiran. afduubayaashu xaaladan ayayba ku neerfoosoobeen. diyaaraddii shidaalka ayaa gabaabsi ku noqday. rakaabkii diyaaradda, naxdintii iyo cabsidii markan waxaa u sii dheer daal, jahwareer iyo hubanti la'aan. saacado kadib, nolol ama geeri mid ay ku dambayn doonaan ayay ka walwalsan yihiin. duuliyihii diyaaradda oo xoogaa dhiiranaan iska baaray ayaa qadka isgaarsiinta kula hadlay mas'uuliyiinta garoonka Bahrain. wuxuu u sheegay in caalamiyan ay diyaaraduhu xaq u leeyihiin haddii uu shidaalku ka dhammaanayo in ay ka degaan hadba garoonkii u dhow oo ay shidaal ka heli karaan. sidaasi darteed in ay mudan yihiin oo ay xaq u leeyihiin in loo ogolaado in ay Bahrain caga dhigtaan si ay halkaasi shidaal uga qaataan. mas'uuliyiintii Bahrain ayaga oo hadalka kabtanka ka damqaday ayay ogolaadeen in ay diyaaraddu soo degto oo ay ku soo degto garoonka, kadibna shidaal ka qaadato. diyaaraddii ayaa aayar soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Bahrain. laakiin halkii la filayay in shidaal lagu shubi doono, waxaa la arkay ciidan qoryo ku hubaysan oo isku gadaamay diyaaradda. hogaamiyihii afduubayaasha oo ka carooday sida ay sheekadu isu beddelayso ayaa bastooladiisii madaxa uga qabtay mid ka mid ah duuliyayaasha. wuxuuna saraakiishii Bahrain u sheegay in haddii 5 daqiiqo gudahood aan askarta laga horwareejin, uu duuliyaha diyaaradda madaxa fujin doono. wuxuu bilaabay in uu tiriyo, laakiin wax daqiiqad ka yar ayaa askartii amar lagu siiyey in ay ka horwareegaan diyaaradda si looga baaqsado in ay dhimasho ama halis kala dhacdo. diyaaraddii ayaa shidaal lagu shubay, kadibna si halhaleel ah ayay uga duushay halkaas iyada oo ku wajahan magaalada Dubai ee dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta. laakiin diyaaraddii oo hawada Imaaraadka ku jirta ayaa saraakiishii garoonka wax kasta oo ay ka ahaydba waxay gawaari kuwa ciidamada iyo dabdamiska ah ku xanibeen dhabbihii ay diyaaraddu ku soo degan lahayd. duuliyihii diyaaradda ayaa mas'uuliyiintii garoonka u sheegay in diyaaraddu uu shidaalku ka dhammaanayo oo ay ku qasban yihiin in ay halkaasi ku dejiyaan, sidaas darteedna dhabbaha loo furo. waa laga ogolaaday.
laakiin markii ay soo degtay intii aan shidaalkiiba lagu shubin ayaa waxaa afduubayaasha qadka kula hadlay wasiirkii difaaca imaaraadka ee xilligaas Sheikh Mohammed bin Zayed oo la hadlay afduubayaasha isaga oo isku dayaya in uu beer la xawsado oo ka dhaadhiciyo in ay iska sii daayaan rakaabka iyo diyaaradaba. laakiin madaxii kooxda ayaa si dhib yar ugu jawaabay hadal nuxurkiisu ahaa: adiga taas kuma qusaysee, waxaad noo keentaa cunto aan cunno, biyo, dawo iyo wargeysyo aan wararka ka akhrisanno. sidoo kalena diyaaradda waa in laga daadiyaa qashinka masqulaha. haddii aan intaasi naloo samayn, dadka diyaaradda saaran oo dhan waan dili doonnaa, diyaaraddana waan qarxin doonnaa. sheekana halkaas ayay ku soo gabagaboobi doontaa, ogaada. To execute all the passengers and the crew. xogta ku saabsan dalabka tirada badan ee ay dalbadeen afduubayaasha waxaa ka war helay sirdoonkii Jarmalka galbeed. waxay isku dhufsadeen xisaab ah in dalabkaasi uu ka dhigan yahay in ay muddo saacado ah sii joogi karaan garoonka Dubai. taas darteedna looga faa'iideysan karo in la fuliyo howlgal lagu soo furanayo dadka iyo diyaaradda afduubanba. muddo kooban gudahood waxaa imaaraadka soo gaaray wafdi uu hogaaminayay wasiir ka tirsanaa xukuumaddii Jarmalka galbeed. wafdiga waxaa kaloo la socday saraakiil iyo askar si gaar ah u tababaran. mas'uuliyiinta imaaraadka ayay ka codsadeen in ciidamadooda gaarka ah loo fasaxo in ay garoonka ka fuliyaan howlgal khaas ah oo lagu soo furanayo diyaaradda iyo rakaabka saaranba. mas'uuliyiinta imaaraadku way ogolaadeen dalabkii dowladda Jarmalka galbeed. ciidankii loo keenay imaaraadka in ay diyaaradda soo furtaan waxaa gudaha Dubai mar kale loogu bilaabay tababar gaar ah oo ku saabsan sida uu howlgalku uga dhaxdhici lahaa gudaha diyaaradda. laakiin saraakiishii howlgalka hogaaminaysay xisaabta kuma darsan in waqti ku filan aysan haysan oo afduubayaashu ay awoodaan in ilbiriqsi kasta ay diyaaradda kiciyaan. ciidankan loo keenay in ay howlgalka fuliyaan way haysteen tababar ku filan, laakiin waxa ay u baahnaayeen in si gaar ah sharaxaad iyo muuqaal guud laga siiyo qaab dhismeedka garoonka iyo gudaha diyaaradda. tababarkaasi dulmarka kaliya u baahnaa ayaa waqti badan qaatay. taas darteed afduubayaashii waxa ay dareemeen in shidaal ku shubidda diyaaradda ay ku hoos jirto in la maaweelinayo oo waqtiga lagu dheereynayo. sidaasi darteed iyaga oo shakisan ayay shaqaalihii shidaalka ku shubayay ku amreen in ay halkaasi ku joojiyaan shidaal ku shubidda. kadibna duuliyihii ayay u sheegeen in uu si degdeg ah diyaaradda u kiciyo, xitaa iyada oo aan hubin lagu samaynin in hawada ay diyaarado kale ku soo jiraan iyo in kale. sakhdii dhexe habeennimadii 16 Oktoobar 1977 ayay ka kacday garoonka Dubai ee waddanka isutaga Imaaraadka Carabta iyada oo markan ku wajahan magaalada Salaala ee waddanka Cumaan. laakiin markii ay damacday in ay hawada Cumaan soo gasho ayaa duuliyihii lagu wargeliyay in aysan diyaaraddaasi ka soo dejin karin dalka Cumaan. waxaa loo sheegay meeshii kale ee ay doonaan in ay la aadaan. afduubayaashii oo iyaga laftirkoodii amarkaasi maqlayay waxa ay duuliyaha u soo jeediyeen in uu diyaaradda u leexiyo dhinaca Yemen. Yemen waqtigaasi waxa ay u kala go'nayd laba dawladood, Yemanta Koonfureed iyo Yemanta Waqooyi. diyaaradda waxaa loo leexiyay dhinaca Yemanta Koonfureed oo caasimadeedu ay ahayd magaalada Cadan. shidaalkii ay ka soo qaadatay Dubai waa gabaabsi. markan haddii ay dawladda Yemanta Koonfureed ku adkayso oo ay diido in garoomadeedii laga dejiyo, khalaas way isku dhamaatay. waxayna u badan tahay in diyaaraddaasi ay iskeed u soo dhacdo. cabsida iyo argagaxa haysta rakaabka diyaaradda saaran ilbiriqsiga ka dambeeya uu sii kordhayaa. dadka qaar inta ay cabsidii xad ka dhaaftay ayay ku dhow yihiin in ay shoog qaadaan. si kastaba ha ahaatee, Yemantii Koonfureed si la mid ah dawladihii kale ayay diiday in dhulkeedii lagu soo dejiyo. xaalkii aad ayuu u sii cakirmay. wax la sameeyo oo rakaabka iyo diyaaraddaba lagu badbaadiyo lama yaqaan. waxay u eg tahay in saacaddu ay halkan ku istaagi doonto. waa marka xaaladda laga eego xagasha dadka diyaaradda gudaheedii saaran. waa laba daran mid dooro: in diyaaraddu ay shidaal la'aan la soo dhacdo oo kadibna sidaas ku qaraxdo, iyo in ciidamada cirka ee Yemanta Koonfureed ay toogtaan oo sidaasi ku qaraxdo. sida kale haddii aan u dhahno, waa laba qarax mid dooro: in hawada lagu qarxiyo iyo in ay dhulka ku qaraxdo. wax kastaba ha ku qaadatee, duulihii waxa uu go'aansaday in diyaaradda uu qasab dhulka ku dejiyo. laakiin markii uu hawada Cadan soo galay waxa uu haddana la kulmay caqabad kale oo xajmigeedii leh. wuxuu arkay in dhabbihii ay diyaaraddu ku degi lahayd oo lagu jaray gawaari, biro adag iyo dhagaxaan waaweyn. duuliyihii oo aan go'aankiisii ka labalabayn ayaa diyaaraddii dejiyey, isaga oo ku socodsiiyey jid cadde jaay ahaa oo ku dhinac yaalay
waddada weyn laamiga ah ee diyaaradaha lagu orodsiiyo. ilaah mahadiisii diyaaraddii oo aan waxba gaarin ayaa si badqab leh ku istaagtay meel ka mid ah garoonka. laakiin maxaa dhici raba? afduubayaasha oo xaaladda garoonka qiimaynaya ayaa daaqadaha diyaaradda ka fiiriyey hareeraha. waxay arkayeen ciidamo aad u fara badan oo meel kasta ka soo muuqda. isla markiina saraakiishii Yemanta koonfureed ayaa qadka kula soo hadlay oo afduubayaasha u sheegay in daqiiqado gudahood ay halkaasi uga kacaan oo ay ka baxaan hawada Yemen. indhabarun ayay ku ooyaane waxay garowsadeen in Yemeniyiintu ay soo taagan yihiin wax walbana ay dhabka yihiin. afduubayaashii waxaa u caddaatay in Cadan iyo Yemen oo dhanba aysan ahayn meel ku habboon in ay sii joogaan oo ay diyaaraddana ku sii haysan karaan. waxay ku warceliyeen waan dhaqaaqaynaa, laakiin diyaaradda shidaalka loo buuxiyo. waa laga ogolaaday. sidii ayaa la yeelay oo shidaalkii ayaa loo buuxiyey. laakiin duuliyihii koowaad waxa uu afduubayaasha u sheegay in wixii markan ka dambeeya aysan suurtagalba ahayn in diyaaraddu ay duusho. wuxuu ku yidhi jidcadihii rafka ahaa ee ay diyaaraddu ku degatay ayaa cillad ku keentay, matoorka ayana u badan tahay in ay ciid iyo dhagaxaan galeen. sidaasi darteed haddii la duulo waa halis kale oo weyn. afduubayaashii kama daadegin hadalkaas, waxayna u ogolaadeen in markii ugu horreysay 5 maalmood oo ay diyaaraddu afduuban tahay uu markan dhulka u dego si uu u soo hubiyo cilladda. duuliyihii dhulka ayuu u degay, wuxuu hoosta ka galay diyaaradda, wuxuu soo qiimeeyey xaaladda. awal buu u ogaayay in aysan cillad jirin. waxa uu markiiba u dhaqaaqay gudaha garoonka, halkaas oo uu si qarsoodi ah ugu tegay saraakiishii dowladda, isaga oo rabay in uu ka dhaadhiciyo in diyaaradda iyo lahaystayaasha lasoo badbaadiyo. laakiin nasiib darro, saraakiishii Yemen waxay u sheegeen in aysan rabin in ay hawshan faragashtaan. isaga oo niyad jabsan ayuu ku soo laabtay. haddana si qarsoodi ah ayuu dib ugu noqday gudaha diyaaradda. afduubayaashu ma arkin in ninkan uu saraakiisha la kulmay, laakiin waxay ka shakiyeen dareenkii ka muuqday wejigiisa iyo daqiiqadihii badnaa ee uu bannaanka diyaaradda ku maqnaa. sidaasi darteed waxay qaateen go'aan ah shaki oo dhanba waa la tirtiraa oo waa la isdhaafiyaa. Jürgen Schumann ayaa sidaasi ku baxay. madaxii kooxda afduubayaasha ayaa bastooladiisii madaxa uga aadiyey duuliyaha, kadibna hal xabad ku dhejiyey. halkaas ayay ku soo gabagabowday noloshii kabtan Jürgen Schumann, duuliyihii koowaad ee diyaaraddii Landshut ee shirkadda Lufthansa. duuliyihii labaad ayaa lagu amray in uu diyaaradda kiciyo. sidaas ayayna diyaaraddii cagaha dhulka uga qaaday abbaara 6dii subaxnimo maalintii 17aad bishii Oktoobar 1977. markan waxaa loo jihaystay dhanka badweynta Hindiya. duuliyaha labaad ma yaqaan meel loo socdo, laakiin waa la iska socdaa. markii dhowr daqiiqo hawada lagu jiray ayuu weydiiyey, mudane xaggeen aadiyaa diyaaradda? waxay u sheegeen in uu geeyo Soomaaliya, in uu Muqdisho cagaha u dhigo. duuliyihii labaad isaga oo dhega nugul ayuu amarkii qaatay, diyaaraddiina ku soo leexiyey hawada magaalada Muqdisho. mas-uuliyiintii dowladda Soomaaliya ee waqtigaas waxa ay qaateen go'aan ka duwan kuwii dowladihii kale ee Carabta sida Syria, Lubnaan, Ciraaq, Cumaan iyo Yemen, kuwaasi oo garoomadoodii u diiday in ay diyaaraddu ka soo degto. dowladda Soomaaliya diyaaradda way soo dhaweysay, waxayna ogolaatay in garoonka Muqdisho lagu soo dejiyo si nabad ah. afduubayaashii iyo lahaystayaashii way isku daaleen. markan waxa ay kooxdii go'aan ku gaartay wax kasta oo ay ku qaadataba in ay Muqdisho saldhigtaan, in ay halkan u noqoto xarunta ay gorgortanka ku galayaan, oo haddii ay suurtagasho in dalabkoodii madax furashada la fuliyana ay maxaabiista iyo lacagtaba ku kala wareegaan. saraakiishii Soomaaliya waxa ay diyaaradda ugu deeqeen cunto, biyo, dawo iyo in qashinkii musqulaha laga qaaday. waxaa laga ilaaliyey in wax taagtaag iyo shaki abuuri kara lagu sameeyo gudaha garoonka. afduubayaashu waxa ay dalbadeen in meydka duuliyaha laga dejiyo diyaaradda, iyana waa laga ogolaaday oo waxaa la soo dejiyey meydka duuliyihii ay diyaaradda ku dhex dileen. afduubayaashii oo ku qancay xaaladdan ayaa abaalgud ka dhigay in duuliyihii labaad ee diyaaradda kaxaynayay ay xurriyaddiisii siiyaan, kaasoo u fasaxan in uu Muqdisho hore u sii galo, kadibna halkii uu doono sii aado. laakiin duuliyihii labaad ayaa diiday yaboohaasi. wax kasta oo ay ka ahaydba wuxuu sheegay in uu doonayo in uu lahaystayaasha kale wax la qaybsado, diyaaraddana uu iska sii saarnaado ilaa dhammaadka sheekada. Von gar nichts. Wir kamen aus heiterem Himmel darunter.
über den Platz geflogen, eine Kurve. markan wixii ka dambeeya waxaa bilaabanaya gorgortankii diyaaradda iyo dadka saaranba lagu sii dayn lahaa. dowladda Soomaaliya waxa ay weydiisay afduubayaasha waxa ay doonayaan in madax furasho ahaan loogu sameeyo. afduubayaashii waxa ay mar kale ku celiyeen shuruudoodii madax furashada oo ah in la sii daayo maxaabiista ka xiran labada dhinac, jabhadda xoreynta Falastiin iyo kooxda ciidamada guduudan, iyo in sidoo kale la siiyo lacag 15 milyan oo dollar ah. iyagoo intaas ku daray in dhammaan maxaabiista Muqdisho loogu keeno oo meesha kala wareejintu ay ka dhacayso ay Muqdisho noqoto. saraakiishii Soomaalida waxa ay afduubayaasha u sheegeen in dowladda Jarmalka galbeed lala xiriiray oo loo sheegay dalabkaas, sidaas darteedna ay ogolaadeen dhammaan qodobadii shardiga ahaa ee ay soo gudbisteen afduubayaashu. waxaa kaloo loo sheegay afduubayaasha maxaabiista in Jarmalka laga soo qaado oo Muqdisho la keeno ay qaadanayso saacado badan, sidaas darteed ay dulqaadka badiyaan inta safarkaasi uu Muqdisho ka soo gaarayo. laakiin sida xaqiiqdu tahay dowladda Jarmalka galbeed uma qorshaysnayn haba yaraatee in ay wax madax furasho ah ku bixiso sii deynta diyaaradda. ergey gaar ah iyo saraakiil ciidan oo ay soo dirtay dowladda Jarmalka galbeed ayaa Muqdisho soo gaaray. waxa ay hordhac u ahaayeen askar si gaar ah u tababaran oo ka tirsan ciidankii gaarka ahaa ee GSG-9. madaxdii Jarmalka ka socotay iyo dowladda Soomaaliya waxa ay bilaabeen heshiis degdeg ah in ay ka wada xaajoodaan, kaasoo ah in ciidamada Jarmalka loo ogolaado in ay howlgal ka fuliyaan gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. labada dhinac ayaa isla ogolaaday in ciidamada Jarmalka ay soo gaaraan Muqdisho kadibna howlgalka ay fuliyaan, iyada oo kuwa Soomaalidana ay caawinayaan. waxa anagoo ka xun ay misna nagu kaliftay ay noo sheegeen in ay dileen pilotkii diyaaradda waday. ciidankii Jarmalka ee gaarka u tababarnaa ayaa ka soo dhaqaaqay garoonka diyaaradaha magaalada Bonn ee dalka Jarmalka iyaga oo ku soo jeeda geeska Afrika. saacado kadibna waxa ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee dalka Djibouti. wax aan daqiiqada ka badnayn ayaa halkaasi ku hakadeen, kadibna waxay u soo dhaqaaqeen magaalada Muqdisho. maalintii 18aad bishii Oktoobar sanadkii 1977 xilli fiidnimo ah ayaa ciidamadii laga soo diray Jarmalka ay soo gaareen magaalada Muqdisho. taliyayaashii ciidamada markan waxa ay cashar ka soo qaateen maalintii ay Dubai ku sugnaayeen oo ay isu diyaarinayeen howlgalkii soo furashada, laakiin dhicisoobay. marka ugu horeysa diyaaraddii ciidanka waday ayaa la amray in ay damiso dhammaan iftiinkii u shidnaa, sidoo kale in ay soo yareyso masaafada dhabaha diyaaradaha lagu orodsiiyo si aysan ugu dhowaan diyaaradda afduuban. afduubayaashii oo aan wax dhiila ah dareemin ayay ciidamadii kala soo degeen diyaaraddii wixii hub iyo saanad ahaa oo ay wateen. muddo 4 saacadood ah ayay haddana ku qaadatay in ay isu diyaariyaan howlgalka. waxaa la soo gaaray saqdii dhexe abbaara 12 habeenimo. sarkaal Soomaali ah ayaa qabsaday qadkii isgaarsiinta ee garoonka. wuxuu la hadlay afduubayaasha. wuxuu ku wargeliyey in diyaaraddii waday maxaabiista ay daqiiqada ka hor ka soo duushay garoonka Qaahira ee dalka Masar. wax yar kadibna ay ku soo wajahan tahay magaalada Muqdisho. sidaas darteed loo baahan yahay in la isu diyaariyo shaqada kala wareejinta maxaabiista iyo la haystayaasha diyaaradda. sheekadaasi waxay ahayd maaweelin iyo in afduubayaasha laga marin habaabiyo xaaladda dhabta ah ee garoonka ka socota. intii uu wada hadalkaasi socday ayay askartii Jarmalka oo si feejigan hubkoodii u haysta isla markaana soo qaatay jaranjarooyin yaryar ay si dhumaaleysi ah ugu dhawaadeen, kadibna hoosta ka galeen diyaaradda. askartii Soomaalida ee howlgalka caawinaysay ayaa isku beegay meel diyaaradda afduuban horteeda ah. waxay halkaasi ku qarxiyeen baaruud bixisay dhawaq iyo iftiin weyn. afduubayaashii oo ka naxay waxa hortoodii ka dhacay ayaa 3 ka mid ah ku soo cararay shirka diyaaradda si ay u arkaan waxa meesha ka socda. isla ilbiriqsigaas askartii Jarmalku waxa ay si boobsiis ah ku carareen albaab xagga dambe ugu yaalay diyaaradda oo loogu talagalay in rakaabka ay ka soo baxaan marka ay xaalad degdeg ah timaado. albaabadii ayay ilbiriqsiyo ku jibiyeen, ayagoo aan hakan ayay haddana gudaha diyaaradda orod ku galeen. ugu horreyna waxa ay toogteen gabar ka mid ah afduubayaasha oo ka soo horbaxday. waxaa xigtay dagaal qaatay wax aan daqiiqadba ka badnayn oo dhex maray askartii iyo afduubayaashii. mid kaloo afduubayaasha ka tirsanaa ayaa isna la dilay. ugu dambeynna waxaa iyaga oo dhaawac garaab ah qaba diyaaradda laga dejiyey madaxii kooxda iyo gabar afduubayaasha ka tirsanayd. mid ka mid ah askartii Jarmalka iyo 4 kale oo isugu jiray rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda ayaa ku dhintay howlgalka. Maxamuud Cakaash
madaxii kooxda wuxuu geeriyooday 4 saacadood kadib isagoo u dhintay dhaawicii halista ahaa ee soo gaaray. saacado kadib waxaa Muqdisho laga qaaday dhammaan dadkii rakaabka ahaa ee afduubka laga badbaadiyey, shaqaalihii diyaaradda iyo askartii Jarmalka ee howlgalka fulisay. isla maalintaasna waxaa laga dejiyay garoonka magaalada Bonn ee caasimadda Jarmalka galbeed. dadweyne aad u faraxsan ayaa isugu soo baxay wadooyinka, kuwaasi oo soo dhaweyn iyo marxabeynba u sameeyay dadkii afduubka laga soo badbaadiyey. Muqdisho waxaa lagu reebay Suhayla Andrews oo ka mid ahayd afduubayaasha, taas oo looga tagay dhaqaatiirtii Soomaalida si ay u dabiibaan, maadaama uu dhaawac halis ah ka soo gaaray howlgalkii soo furashada. markii lagu guuleystay la tacaalidda xaaladii caafimaad ee Suhayla ayaa ugu dambeyn maxkamad lagu saaray isla magaalada Muqdisho, taasoo markii ay muddo dacwadeedii socotay kadib lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. sanadkii 1980kii ayada oo muddo 3 sano ah xabsiga ku jirta ayaa laga dayriyay xaaladeedii caafimaad. dowladdii Soomaaliya ayaa iska sii daysay, kadibna u dhoofisay dalkii ay u dhalatay ee Lubnaan. muddo 11 sano ah ayay Lubnaan kula noolayd qoyskeeda oo ka koobnaa saygeeda iyo dhowr caruur ah oo ay isu dhaleen. sanadkii 1991kii ayay u guureen dalka Norway, halkaas oo ay ku noolaayeen muddo 3 sano ah. kadib waqti ku beegan 1994kii ayaa waxaa Suhayla aqoonsaday ciidamada sirdoonka ee Norway. waa la qabtay, kadibna waxaa loo gacan geliyay dowladda Jarmalka galbeed oo baadigoob ugu jirtay gabadhaas. gudaha Jarmalka ayaa maxkamad lagu saaray, waxaana lagu xukumay muddo 12 sano oo xabsi ah. 3 sano kadib ayaa haddana xabsiga looga sii daayay xaalad caafimaad dari darteed. Suhayla waxay noqotay haweeneyda kaliya dunidan ee 2 jeer loo xukumay hal fal dambiyeed. dowladda Jarmalku markii ay sii daysay Suhayla waxa ay go'aansatay in ay dib ugu noqoto dalka Norway oo ay dooratay in ay ku noolaato inta nolosheeda ka dhiman. Suhayla waxay iska degtay dalka Norway, waxayna ahayd qofkii kaliya ee nolol ku soo haray 4 qof ee afduubayaasha ahaa ee diyaaraddii Lufthansa. si diyaaraddaasi loo maamuuso, dowladda Jarmalku waxa ay Lufthansa ugu magac dartay akademiyad lagu tababaro duuliyaasha oo gudaha Jarmalka ku taala. halkaas ayay ku soo gabagabowday sheekada taariikhdii afduubka ee diyaaradda Landshut ee shirkadda Lufthansa. tan iyo mar kale, sidaas iyo nabadgelyo, amaana Allah. halkan waa Itaal Media, aniguna waa Aways Xaaji Nuur, Aways Ar, amaana Allah.